بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هراي نسي سعود دونا إنه عاوته وحين رمينا فيديو إنه كوسا من قيبتي براكتيكال كا دي إكس إف فايل كا طبعا واحد جري لبع 10 هراي إنه كجاه هذا دي إكس إف فايل كا إنه كوسا شرحنا وعم مهمة دولية هي صوابت أي تاي إنه دي إكس إف فايل وسمي إنه صدق كله وحين كوسا أرجنا وعم حي هذين رمينا استاتيكال سيستم إنه سمي صنع إنه مركو رسينا إنه اسمها إنه ودن أي نفيرنه كدبنا أي ندورنه inta floor ama inta slab aynu doonayno inaan statical system aynu ku sameeyno waayo waxa jira mararka qaar slabs badana soo noqonaysa typical floor ka aynu u baahanaa waa maxay inuu hal mid waa maxay ama hal statical system aynu ka sameeyno okay marka insha Allah hadii aad u baahan tahay 10 hore dib ugu noqo labada 10 aynu kaga hadlanay DXF file ka halkaas ayaad ka fahmi doontaa marka halkan waxaan ku haysanaa aynu dabcan saddexdii floor aynu hore ugu ballanay hadaan 10kii hore aynu dib ugu noqono waxaan ku ballanay waa maxay inaynu saddex statical system aynu sameysano qayb basement iyo qayb typical ka iyo waa maxay last floor ka okay marka saddex typical floor marka halkan waxaan ku haystaa saddexdoodii halkan waa maxay last floor ka ayaan ku haystaa halkan waxaan ku haystaa typical ki halkan waxaan ku haystaa waa maxay ground waa maxay ama basement roof ki okay marka hadeen dib saa ugu noqdo anigu waxaan idin la sameeyay waa typical ka okay waa typical ka 10 aan soo sharaxo dhan dhammaan waxaan ku sharaxay waa maxay waa typical ka horeyna waxaan u mention gareeyay aan waa maxay markasta shaqo qabanaysa inaad ka qabilowdo waa maxay typical ka laana waa maxay typical ka waa slabka ugu badan ee soo noqnoqonaya marka hadii hal column oo kamida waa maxay problem kugu abuuro dhib ma lahan waayo hodhowti markii aad qaybaha hoose aad u timaado columnkaas waa socodsiin kartaa laakiin hadii waa maxay column ka khaldamo hal slab oo kamida typical ka micnaheedu waa maxay ilaa 5 ama 6 floor oo isqaab waa maxay ama isqaab statical system u sameysnaa ayaa waa maxay problemka soo wajahaya marka markasta shaqadaada waa maxay waxaad ka bilowdaa typical floor ka si aysan hodhowti aysan kugu soo noqon okay marka طبعا ساد أركيز الآد لو statical system أيان وحن سمستي أن اللهم استعان typical floor كعشر كين وجودن بيهدا دي بقول نقطيد مركب وحن كوبلا نوام محي إنه كان ضمب أين كوسع أين كيهراين إنه مركب كيهرا أسكت اللي ذي الآن كان أيام محي أن الصهرة أوكي marka waxaad arkaysaa waxa weeye inaad slabka insaan oo kale to laba qaybood igu qaybsamo qayb waa maxay flat slab iyo qayb waa maxay solid slab oo qaybtan hoose qololka hoose oo dhan solid ayaan ka dhigtay aan okay marka sidoo kale waxa halkan arkaysaa waxa weeye in aan mesela aan slabkii mesela waa maxay aan ka saaray qaybtii waa maxay cantilever ka ahayd qaybtii cantilever ka ahayd in aan saas uga saaray ayaa dareemaysaa marka sababta aan saa u sameeyo waxa weeye hodhowtii markii aan model dhameystiran aan ku sameynayo ETABS-ga ama maxay barnaamijyada structural analysis aan u adeegsan doono waxaan kala saarayaa waa maxay load-ka aan dul dhigayo qayb kasta okay laana loadadku waa ay kala duwan yihiin maxaan ka wadaa halkaas mesela hadii aan halkan idin tuso file noocan oo kale taa okay kan waa maxay waa British code-ka code-ka numberkiisu waa maxay waa PS6399 part 1 qaybtiisa koobaad ee waa maxay code of practice okay marka aan kaga hadlayna waa maxay loadiska qaybaha kala duwan marka hadii mesela aad timaado mesela adan hoos ugu soo baxo timaado waa maxay table number 1 okay table kan oo kale muxuu ku leeyahay halkan minimum imposed floor loads yani floor kasta minimum ka soo xagaratay ma load ka dul dhigaysa maxaa kamid ah marka qaybta anagu aynu haysanay ama aynu ka hadlaynay waa maxay waa residential waa qaybtan residential floor ka sax marka ama residential activities ka marka domestic and residential activities ayuu soo soo qabanaya marka muxuu ku leeyahay mesela qolalka oo kale tabuu ku leeyahay soo xagaratay markii laga reebo hoteelada iyo moteliska waxaad dhigtaa ku leeyahay markii loadka uu yahay uniform distributed waxaad dhigtaa waa maxay 1.5 kilonewton per meter square okay marka wuxuu leeyahay mesela bedroom ka soo xagaratay ma bedroomska hoteelada iyo moteliska ama waa maxay hospital wariska ama qolalka waa maxay loogu talagalay wararka ay leeyihiin waa maxay isbitaaladu waxaad dhigi kartaa uu ku leeyahay 2 kilonewton per meter square okay marka waa markii ay waa maxay distributed yihiin oo markaan aanu isticmaali doono aynu ETABS-ga dabcan waxaan dhigi doonaa waa maxay dhamaantood waxaan ka dhigi doonaa distributed okay marka mesela halkan wuxuu leeyahay balcony-ga waxaan rabay inaan halkan ku fahansiiyo balcony-ga oo kale ku leeyahay wuxuu ku leeyahay waa maxay waxa dhigtaa waa maxay mesela 1.5 haduu yahay waa single dwelling units yani waa maxay meel yar residential oo deegaan soo xagaratay maaha qaab noocaas oo kale tada u baahan tahay oo kale waxa dhigtaa uu ku leeyahay 1.5 okay marka hadii waa maxay guest houses ama residential clubs aad isticmaalayso waxa dhigtaa uu ku leeyahay mesela loadka life loadka waxa isticmaashaa uu ku leeyahay mid lamida midka qolalka aad u isticmaashay soo xagaratay laakiin minimum waa inuu ahaada waa maxay 3 kilonewton per minute square per meter square okay marka
طبعا لودز كان ضمانته waa maxay waa minimum hada qaybtan sarifta waa minimum imposed floor loads yani waa maxay waa meesha ugu hooseysa hada jeceshay inaad inta ka badisidna waad ka badin kartaa okay marka mesela hadan ECB code ka soo xagartay ma insaas isagana u fiirino waxa uu ku leeyahay waa maxay waa same kan waa dabcan waxa weeye waa code masri soo xagartay ma Egyptian code ka marka ilma lahan Arabiga laakiin waxaan rabnaa bas inaynu conceptiga kala baxno marka anu kanaan badan aan isticmaalaa laano kan xogaa waxa dareemaya waa maxay numberku waa maxay inaan number yani muayyan inuu ku siinayo minimum range inuusan adigu kugu xidheen ku leeyahay marka numberkaas isticmaal okay marka numberka automatically isticmaal marka muxuu ku leeyahay mesela quraf sakaniya ama waa maxay qolalka deegaanka bedroomska oo kale maxaad isticmaashaa buu ku leeyahay 2 kilogram ay per meter square 200 kilogram yani soo xagaratay ma hadhow taadaad kilo newton u badashina waa maxay 100 baad u qaybinaysaa hada tan aad isticmaalaysaa ama tan meter aad isticmaalaysaa maxaad u qaybinaysaa kilo newton ka ayaa 10 u qaybinaysaa marka kaliya waa maxay waa unit conversion inaad xogaa kala bedbedesho waa maxay unitiskaaga marka wuxuu ku leeyahay mesela halkan salaalimka stairska waxa weey jikooyinka suuliyaasha waxa saartaa buu ku leeyahay waxaad isticmaashaa 300 kilogram per meter square okay marka mesela balkoonada ama waa maxay truska ama cantileverka waxaad isticmaashaa buu ku leeyahay 300 kilogram per meter square ama waa maxay 3 kilo newton per meter square okay marka طبعا احسن ومبني سكني هذا استعمالي انا waxaan jeclaan qaabkan in aan u isticmaalo okay kan isticmaalano waa maxay PS code ka waxaan dareemayaa waa maxay inuu range aniga waa maxay minimum inta isticmaal uu leeyahay laakiin numberka bizabt numberkaas isticmaal inuusan idhahayn marka saas ayaan waa maxay aan kanaan badanaa waa maxay numberradan isticmaashana it's okay hadaad waa maxay aad mesela PS code ka aad isticmaasho waa maxay نبرديسنا ومحي اسك اوكي اسغنا سو حقرتي ما ادوا محرنجيغان مثلا 2 markuu ku leeyahay maxay laba suuliyaashay waa maxay iyo ka dhig 3 markuu ku leeyahay mesela hada ranjiga xooga ku dirsatid oo kaleeto oo caadi hadartay ina minimum ka soo qaadatidna minimum ka waad ka soo qaadan kartaa okay marka waxa jira document kale halkan aan ka soo dejiyay soo xagaratay ma research gate ka marka waxa ku leeyahay waa maxay hada hoos u degto isagana waa maxay xooga discussion qof waa maxay halkan days waa maxay research sameeyay marka waxa ku leeyahay مثلا qolalka مثلا office building hadu ismahaaga uu yahay office oo kaleeto waxaad saartaa waxa isticmaashaa buu ku leeyahay uniformka مثلا life loadka 2.5 kilo newton per meter square okay qolal waa maxay hadii مثلا classrooms ay yihiin oo kaleeto waxaad isticmaashaa 3 kilo newton saas oo kaleeto wax galatay hadii corridorska meelaha wadooyinka waa maxay storieska soo wax galatay ma reading waxa way roomska ama qolalka waa maxay library oo kaleeto kamida meelaha wax lagu akhristo kaleeto dad badan community badan isugu imaanayaan ay waxaad isticmaashaa buu ku leeyahay مثلا 4 كيلو نيوتن بير متر سكوير اوكي marka halkan muxuu ku leeyahay halkan hada fiirsa residential building apartments waa maxay apartments dhan yani residential ka suuli iyo waa maxay cantilever waxba kala saarin buu ku leeyahay kulli laba uu isticmaalo kaleeto ama waxa isticmaashaa waa maxay 2 كيلو نيوتن بير متر سكوير ayu waa maxay isticmaal ayu ku leeyahay marka يعني يستحسن ومحي inaad kala saarto aad soo hagaratay maaha marka markasta anagu hadaynu projectigan ku wadayna waa maxay waa kan Egyptian code maadaama asaga number specific oo macquula oo logiga waa maxay u saayisi okay kulli waa maxay dhamaantood waa safe koodadka oo dhan yani wax mid kale ka duwan ma jiro laakiin qof kasta engineer kasta meeshu murtaax ku yahay ay ku xirantahay okay marka hada inta asaas uga soo gudbo waxaad dareemaysaa marka waa maxay inaan aan saan oo kale aan qaybta aan cantilever ka aan waa maxay saa u calaamasaday inta ay tahay laana hodhowtii markii aan model e-tabs aan sameeyay waxaan doonayaa waa maxay meesha aan u baahanahay bizabt inaan mesela aan 300 aan ka dhigo inaan markiiba aan dooran karo soo wax garatay ma meesha aan rabo inaan 200 kilo soo wax garatay ma aan saaro aan markiiba inaan waa maxay loadka meeshiiba aan select oran karo aan waa maxay loadka aan u baahanahay aan dul saari karo marka qaab noocaas ayaan waa maxay aan saa ugu talagalayaan marka intaas inaad fahanteen ayaan filayaan marka hada intaas uga soo gudubno dabcan hada toos waxaan u bilaabanaynaa aynu shaqadeena marka hadii aan zoom sa usoo dhaho waxaan ka bilaabayaa waa maxay typical floor keyga marka hada zoom sa usoo dhaho waxa weeye design keyga wali waxaan dareemayaa waa maxay inay ila socdaan ay drawing iga soo raacay dhankaas architecture-kii mesela wali waxaan dareemayaa waa maxay inay ii muuqdeen halkan stairskii marka stairska hada waxba uga ma baahni aan meeshaas oo dhan waa maxay plan waxaan ka dhiganayaa banaan sidoo kale curves-kan oo dhan uma baahni aan dabcan waa trustigii marka waxa laga yaabaa in ay weydiiso atraad engineer curves-kan aad tirtirtay hadeertaan waxa uu la xiriiray waa maxay trust ama cantilever-kaaga ayuu la xiriiray marka maxaad u dhaliyadaysaa waxaan ku leeyahay dib ma lahan hodhow ayaan gadaal kaga darsan karaa aan
marka laano curve yar weeye fa curve-ga yar haddaan dhiliidno yani curve yar waa maxay sidii koor ahaan ayaa halkan saan kaleeto yaalay marka dhowdan hadda dhiliido mashaakil badan igu keeni mayo dhowta hadii aan waa maxay aan dib rabo inaan u sawirto aan marka aad bay igu fududahay marka aan saas waa maxay blankeygu hadda uu face oo aan ugu sifeeyaan waxaan doonayaa waxa weeye in aan blank inta aan u gudbin waa maxay file kale intaan ku save gareyn hadii aan mesela aan saa u soo furto waxaad arkaysaa waa maxay dhammaan inay halkan ii yaalaan layers aad u tiro badan aan qaybtood aanan isticmaalayn qaybtoodna iga soo raaceen waa maxay drawingka architecture-ka marka waxaan doonayaa waa maxay file-kayga inaan khafiif ka dhigo laana layerskan badan aanan waa maxay meeshan igu samaysan teeda kale tan aan isticmaalin waxa laga yaabaa in waa maxay file-ka u dhoti size-kiisu aad iga weynaado marka waxaa jira amar la yiraahdo barge ayaan saa u leeyahay aan waxaan isku dayayaa waa maxay inaan liido layerska aanan waxba iigu sawirnayn ya wuxuu ii deynayaa marka waa maxay amarkan layerska waxay igu sawiran yihiin bas inta kale toran ayuu iga dhiliidaya marka waxaan leeyahay barge all okay waxaan leeyahay barge all items mar labaad ayaan ku celinayaa ilaa waa maxay barge all items qaybtan hoose ay waa maxay active ay ka dhaxayso ay marka ku celcelinayaa aan hadda welito one time okay hadda waxa dareemaysaa waa maxay inuu dhammaan layerskiisa oo dhan uu ka tirtiray marka close hadii aan dhaho aan layerskayga hadda saa u soo furto waxa dareemaysaa waa maxay in layerska bas uu ii reebay aan wax ku sawirtay aan ama layerska bas drawingkaygan waa maxay khuseeyo in waa maxay iisa igu reebo marka file-kayga ayaan saa koob u soo dhahayaa hadda uu bobsiinaya si waxaan doonayaa waa maxay file-ka ama ma video-ga time-kiisa uusan ziyaadin file-ka halkan ay qolatay ayaan ku save gareysanaya waan soo qaatay waxaan ku save gareystay halkan drawing 4 okay marka waxaan doonayaa aan inaan file-kayga hore aan mesela saa u soo furto hoos aan saa ugu dogto aan rabaa inaad idin tuso in aan rabo inaan samaysto layerskan aan halkan ku xusay dabcan meeshan ku xusamay ay waa kana waxaan rabaa inaan sameeyo layer khuseeya columnska layer khuseeya beam 2 alif yani beamka mesela beamska aan haysano waa maxay wartigoodu yahay 12 beamska waa maxay wartigoodu yahay mesela 25 okay opening soo hagaratay ma SS14 FS20 live load dhammaan waa maxay waxaan doonayaa layerskan cusub anigu aan rabo inaan samaysto inaan drawingkayga ku muujiyo marka waxaan rabaa in aan soo furto layer properties halkan layer property-gana soo furto si aan layerskaas aan u samaysto waxaan leeyahay new layer kood waxaan leeyahay et mesela column okay et column marka wuxuu khuseeyaa columnska marka waxaan dhahayaa mesela colorkiisa blue iga dhig saasoo kaleeto waxaan samaysanayaa mesela et beam 2 alif yani waxaan rabaa inaan qaybtan galiyo beamska dherarkoodu waxa wartigoodu uu yahay afwan 12 okay marka safe ayaan saa u leeyahay aan color waxaan ka dhiganayaa cagaar si indhihiisa waa maxay dhuntaan si fiican iigu muuqdo waxaan gelinayaa mesela et beam 25 okay beam waa maxay 25 wartigiisa uu yahay ay color waa maxay dhuntaan indhaha soo qabanay mesela jaallo oo kaleeto ama color xogaa ka duwan mesela colorkan ayaan saa u dhigayaan okay waxaan dhahayaa mesela et rigid okay rigidka dabcan hore uma sharaxin ama filayaan laakiin waxaynu u adeegsan doonaa cabaar kadib ayaad arkaysaa marka colorka guduudan ayaan asaga ka dhigayaan okay waxaan sameynayaa oo kale et mesela opening okay openingki ayaan ugu talagalayaa kaas mesela kaas asagana color waxa siisaa aad xoga iftiina mesela any color mushkilad ma lahan mesela kan colorkan magenta ayaan siinayaan okay waxa ii soo haray waa maxay et aye et مثلا live load okay waxaan gelinayaa marka asagana any color kan wax dhima lahan any color hadii aan saa u galiyo sorry ayo et live load marka inaan saa asagana soo saaro marka ay color aan u baahanahay مثلا colorkaas cad ayaan ka dhiganayaa مثلا okay waxaan sameysanayaa aan et okay flat slab okay مثلا thickness-keedu yahay 20 cm okay marka ay color ay iyada siinayaan cagaarkaas oo kale u daa marka waxay weydiin kartaa waxa weeye waybaad waxa weeye aad thickness-ka 20 cm ka xagee baad ka keentaa طبعا hadda xagee baan ku jirnaa in barnaamijka AutoCAD miyuu fahmaa wax structure analyze ama waa barnaamij bas aan ugu talagalay inaan wax ku sawiro marka hadda waxaan sameynayaa bas waa maxay assumption bas suurta gadaal ba iska bedeli kartaa waa maxay assumptions-ka aan sameysanayo okay marka hadda yani waa number bidaa'i ibtidaa'i aan ka bilaabanay shaqadeeda oo dadaan u baahanahayna inaan gadaal ka bedelo gadaal ayaan ka bedelay okay marka hadda waxaan sameysanayaa et solid slab مثلا thickness-keeduna waa maxay 14 cm okay marka
labaad haddii ay weydiiso why baad waa maxay aad u sameynaysaa waa maxay thicknesska waa inaad xisaabisi soomaysan ahayn slabka waxaan ku leeyahay waa saxsan tahay aad laakiin haddeertaan maadaama aan weli aan sawirayo barnaamijkii draftingka aan ku jiro aan wax mushkilada ma lahan hadda waxaan samaysanayaa bas number waa maxay assumption aan shaqada kusii bilowdaan hodhowti haddii aan rabo inaan waxa laga yaabaa flat slabka hodhowti inuu safe igu noqdo 16 cm oo 20 cm ba aysan noqon marka gadaal baan ka bedelayaa dhimanan okay marka hadda saas waxaan dareemayaa waa maxay inay iigu dhan tahay waa maxay dhammaan waa maxay waxa weeye layerska aan rabay inaan saa u samaysto okay marka close ayaan saa iska soo leeyahay aan layer kasta marka waxaan doonayaa pointigiisa inaan dhigo okay marka waxaan doonayaa drawingkeena marka saan kale inuu ahaa waxaad dareemaysaa qaybtan gudaha oo dhan inuu ahaa flat slab inuu ahaa okay qaybtan hoose qololkan hoose waxaan ka dhignay waa maxay solid slab iyo waa maxay qaybtan iyo qaybtan labadanba waa maxay waxaan ka dhignay flat slab halkan waa maxay qaybahan balkoonna ahaayeenay waxaa loo baahan yahay waa maxay qaybta live loadkan hodhad ku darno mid kasta marka pointigiisa ama meesha ku haboon yahay ayaynu dhigaynaa marka okay marka hadda waxaan doonayaa waxa weey inaan layerskii aan samaystay halkan soo garatay ma ay dhamaantood ugu horeeyay et ugu horeeyay inaan waxa weey mid kasta meesha loogu talagalay aynu gelinayno marka hadda xageeynu ka bilaabaynaa ma columnskaynu ka bilownaa mise beamskaynu ka bilownaa mise slabskaynu ka bilownaa waxaan doonayaa halkan inaan point muhiim ah mention gareeyo qaabka hadii aad xasuusato load transferka buildingka loadka wuxuu ka soo bilaabmaa waa maxay slabska kadib waxa loo soo gudbiyaa beamska kadib ayaa waxa loo gudbiyaa laakiin hadda markaynu sameynayno barnaamijka dx waxaan leeyahay markaynu sameynayno filekan dxf ka waxaynu sameynaynaa cagsiga shaqadaas waxaynu ka soo bilaabaynaa waa maxay columnska kadib waxaynu ku xijinaynaa beamska kadib ayaynu waxaynu ugu dambaysiinaynaa slabska qaabkaas waa qaab muhiim ah waa inaad fahansan tahay laana hadii aad kala khalado tasalsulkaas ama qaabka waa wax u kala hormariyay hodhowti barnaamijka etabsiga mashaakil badan ayaa kaaga imanaya fileka aad sameyso dxf kana waa maxay intiisa ugu badan khalad ayay noqonaysaa marka pointigaas waa maxay waa pointi aad marka ugu horeysa aad si fiican inoo fahantahay doonaysa marka hadda waxaynu isla fahanay aanu isla afgaranay inaan ku horumarayno inaan ku horumarayno columnska marka hadii aad xasuusato casharkii ugu horeeyay aynu ka sameeynay statistical systemka khuseeyo columnska waxaad xasuusataa in aan ku iri marka ugu horeyso columnka markaad sameysato columnka iyo hajka isla socda labadaba waxaad ka dhigtaa block okay laano fursad insha Allah inoo soo socoto ama step aynu qaadi doono mustaqbalka ayuu waa maxayna saacidaya stepkaas aan ka hadlayay hadir ayaan taaganahay okay laano hadirtan waxa dareemaysaa halkan waxaan haystaa waa maxay 26 column ayaan haystaa midalan ama 26 laakiin aan ka soo qaadno column inaynu haysano okay waxaan doonayaa column kasta oo kamida inaan geliyo layerka loogu talagalay sidoo kale waxaan doonayaa column kasta oo kamida in aan ka tirtiro hajka okay sidoo kale waxaan doonayaa waa maxay column kasta oo kamida in aan gudihiisa aan ku sawirto rigid beam okay waa maxay beam aan ugu talagalnay wahmi laakiin abaar kadib asaga aan sharxi doono waxaan ka wado okay marka shaqadaas waxa dareemaysaa shaqo dheer inay tahay hadii midalan aan stepkii aan hore aan u soo qaadina mushkilad badan ayaa waa maxay soo waajihi lahayd maxaan ka wadaa okay midalan si practical hadaan u fiirino column hadaan select sound waxaan dhahayaa waa maxay right click kadibna waxaan dhahayaa edit block in place okay hadaan saa u taabto wuxuu ku leeyahay waa maxay ma waxaad ka hadlaysaa blog la yiraahdo column ha ayaan leeyahay okay marka wuxuu ku leeyahay okay asaga kaliya ay waa maxay select ku saaraya dhamaan columnska kale tan waa ka tirtiraya hadaan zoom saa u soo dhaw wuxuu ku leeyahay marka columnkan maxaad doonaysaa inaad ka qabato waxa leeyahay waxaan rabaa inaan ka qabto marka ugu horeysa in aan tirtiro hajka marka ugu horeysa aan tirtiro hajka okay saas ayaan u tirtiraan maxay kula tahay marka hajkan columnkan kaliya ayaan ka tirtiray mise dhamaan columnska kale ayaan ka tirtiraan aynu hubino save hadaan saa u dhaho edit qaybtan sarada edit ka hadaan waa maxay save insa u dhahno okay wuxuu ku leeyahay save gareynaysa ha hadii aan dhaho zoom out tan soo dhaho waxaad arkaysaa waa maxay dhamaan columns kale waa maxay hajku saa uga tirtiray okay marka dabcan shaqadan waa shaqo facaala oo shaqeynaysa okay dib hadaan ugu noqono waxaan dhahayaa right click okay waxaan dhahayaa kadib waa maxay waxaad samaysaa aad column kaagan waxa aad gelisaa aad waxa la edit in block place okay column waxaad ka hadlaysaa blog la yiraahdo column ayuu leeyahay ha ayaan leeyahay xuleeya marka columnkan maxaad u baahan tahay inaad ku sameyso waxaan leeyahay marka ugu horeysa asaga ii select gare soo rectangle ayuu hadda ii yeesa waxaan doonayaa waxaan dhahayaa in aan midalan aan geliyo waxaan doonayaa aan et column soo garatay ma wax dareemaysa xataa colorka hadaad fiiriso marka ugu horeysa wuxuu ahaa pink ayuu ahaa sax hadda laakiin si ama loonkaas la yiraahdo magenta ayuu ahaa hadeertan laakiin wuxuu isu bedelayaa waa maxay blue marka saa u dhaho wuxuu ku leeyahay okay waxaan kaaga dhigay uu leeyahay waxa aan kaaga dhigay Allahu musta'an
halkaas ayaan sa ku galiyo blue ayaan kaaga dhigay waxaan ku dhex dhigay waa maxay layerka column okay waxaan doonayaa aan dhahayaa marka column-ka laftigiisa in aan ku sawirto rigid beam okay rigid beam maxaan ka wadaa inaan imaado marka ugu horeysa layerka qaybta sare aan kadibna aan dhaho markasta aan sawirayo inaan layerkiisa aan ku dul sawiraan okay marka haddii aan saan selectiga uga qaado waxaan imaanayaa qaybta sare listiga layerska kadib waxaan imaanayaa et layer so et rigid ayaan imaanayaa okay click ayaan saa u siinayaan kadib waxaan taabanayaa l waxaan sawiranayaa line si diagonal ayaan waxa ugu dhex sawiranayaa aan column-ka gudihiisa muhiimadda uu leeyahay waan arki doonaa hadda waxba isku mushkiladeen okay marka line-kaas u sawirato okay waxaan rabaa marka dhammaan columns-ka in shakliga noocaas oo kale ay qaataan okay marka haddii aan save okay haddii aan save intaan save oran marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan hal shay iska hubiyo hal shay aan iska hubinaya waa maxay haddii aan saa u soo dhaho labada wax dareemaysa in ay kala fuuqsan yihiin ama labada waa maxay aysan isku oolin okay waa shay muhiim ah hadda wali block ay yihiin ay waxa weey mushkilad ayaa kaaga imaanaysa laana hodoti e-tabsiga ma fahmayo block wax la yiraahdo okay marka haddii aan save saa u dhaho haddaan save saa u dhaho kadibna aan okay saa u dhaho waxaad arkaysaa waa maxay dhammaan columns-ka oo dhan waa maxay layerka uu iga dhigay waa maxay column-kan uu column iga dhigay kadibna gudahooda uu igu sawiray rigid beam saas oo kale ah okay marka rigid beam-kan muhiimad gaar ah ayuu aniga ii leeyahay adeertaan muhiimaddu ii leeyahay waxa weeye haddii مثلا aan ay line kale aan saa u sawirto aan okay line kale to diagonal hadaan column-ka saa u sawirto waxaan dareemayaa waa maxay point-gan cross-ka iska jira intersection-kan halkaan soo waxa garatay inuu yahay center-ki column-ka sax inuu yahay center-ki column-ka marka waxaan doonayaa hodoti markii aan e-tabsiga isticmaalayo in load-ka ka yimaada beam-ka uu hodoti automatically ku dhaco waa maxay center-ka column-ka okay inuu ku dhaco center-ka column-ka marka waxa dareemaysaa waa maxay center-ka beam-kan inuusan ku beegnayn waa maxay center-ka column-ka okay marka line-kan aan samaystay oo ah line-kan aan samaystay rigid beam-ka waa beam laakiin waa beam wahmi ah waa beam dummy ah soo wax garatay aan ka wada waa maxay wax section aan lahayn wax load aan lahayn waxba dhigto aan la xisaabin kaliya aan ugu talagalay bas load-ka intuu ka soo qaado waa maxay beam-ka waa maxay kadibna uu center-ka ku tuuro Allahumma musta'an uu center-ka ku tuuro column-ka okay marka line-kayga hore hadaan sa isaga tiro line-kii hore aan sa u deystaan waxa rabaa inaan dib sahan hadaan ugu noqdo hadaan dib sahan ugu noqdo inaan hal shay idin tuso مثلا waxaan ku yiri marka kan inuu waa maxay igu sameeynayo beam-ka laakiin hadii مثلا column saan oo kale wax beam aan u dhaweyno flat slab ma u baahanahay waa maxay inaan isticmaalo rigid beam ما uma baahni laano خلاص يعني waa maxay column-kan wax beam oo waa maxay center-ka ka bedeli kara ama meel dhinac kale kaga dhici kara ma yaalanay marka مثلا hadii مثلا flat slab isticmaali uma baahni inaan sameeyo rigid beam laakiin hadaan u solid slab ama column-kayga مثلا in any point waa maxay uu ka qabsanayo beam saano kale taa waxaan u baahanahay in aan sawirto aan rigid beam marka adeertaan hadaan sawirtana dib iguma hayso flat slab-ka hadii aan sawirana waa maxayadan dib iguma hayso marka sidaas ayaan u deynay waxba farqi waxba ka bedeli mayaan okay marka waxaan hadda aan dhamaystay waa maxay shaqadii columns-ka okay waxaan doonayaa marka step-ka ku xiga inaan sameeyo beams-kayga okay marka beams-kayga hadda waxaan samaystay listiga saa u soo furaan laba beam ayaan samaystay beam waa maxay 25 waa yahay width-giisu iyo beam waa maxay width-giisu uu yahay 12 marka inaan kala doortaan doonayaa dhammaan marka waxaan sameynayaa beams-ka ku hareeraysan jaranjarada ama stair-ka aad haysato dhammaan waxaan u deenayaa waa maxay in thickness-koodu yahay 25 inuu yahay thickness-kooda 25 beams-ka gudaha waa maxay qolalka iyo waa maxay suuliyaasha waxyaalahaas kala qaybiye iyagana waa maxay waxaan u deysanayaa 12 milli 12 cm okay marka saasaan u sameeysanayna marka dhammaan afartan column aad arjeedid waa maxay 1 2 3 4 iyo 1 2 3 soo xagalatay ma intaas waa maxay dhamaantan gudaha qaybtan oo dhan waxaan ka dhiganayaa waa maxay width-gooda inuu yahay 25 kuwan kale to geesaha yaala iyo qolalka kala qaybinaya iyagana waxaan ka dhiganayaa width-gooda inuu yahay 12 cm okay marka waxaan ku hormarayaa marka ugu horeysa kuwa waa maxay 25 okay click ayaan saa u siinaya marka ugu horeysa inaan layer-ka aan iska hubiyaa aan wax ku sawirayaan okay marka waxaan sawiranayaa waa maxay مثلا beam-ka saan oo kale taa marka beam-ka waxaan dhahnay waa maxay waxaad ku sawiranaysaa hodoti line hadii waa file-keena saa ugu noqono file-keena hadaan saa ugu noqono okay meesha in ku sharaxnay xagee beeday waatana beams-ka oo kale hodoti rectangle bay marka hore ku wahay laakiin hodoti markaan DXF-ka aan sameeyay maxaan u bedelayaa line ayaan u bedelayaa marka hore maxaan rectangle ugu sawiray waxaan ugu sawiro maxay in shaqada hadda ii fududaato maxaan ka wadaa hadda line baan qabsaday line baan saan kale u qabsaday waxaan doonayaa line-ka inaan center-kiisa saa u dhigaan qaab marka ma garan karo laakiin hadii aan hodoti marka hore aan samaystay marka hore aan ka dhigtay rectangle saan oo kale taa hadii aan saa ugu soo dhawaado waxaad arkaysaa aad
marka haddaan saa ugu soo dhawaado waxaan doonayaa centerka waa maxay lineka beamka centerkiisa inaan waa maxay middle pointigiisa inaan saa u soo qabsado waxa laga yaabaa in problem aniga hadda face gareeyo kale inuu ku face gareeyo waxa dareemaysaa waa maxay pointiga middle pointiga inuusan isaas igu soo qabanayno okay pointigan waan ka saaray ana waa maxay ka saaray علشان hodoti qofkii doonaya inuu waa maxay pointigaas oo kale uu sameeyo hadii mesela uu waayo oo kale in waa maxay uu si fudud u heli karo marka hadii aad qaybtan hoose mesela aad saa u timaadaan haddii doonayso oo snapka inaad waa maxay settingkiisa aad bedesho calaamadan qaybta hoose ee snap cursorka ayaa saa u soo furi kartaa kadib waxaad taaban kartaa waa maxay object setting saas oo kale okay object setting dialog saan oo kale ayuu kugu soo furay ama waxaad taaban kartaa inta iska soo xirto controlka iyo waxaad la taabataa right click mouse-kaaga okay hadda saa isla taabato midda ugu hooseysa waad adiga arkaya waa maxay o snap okay o snap ayaan waa maxay saa u taabanayaan okay marka waxaad dareemaysaa waa maxay oo snapka in waa maxay qaybo badan waa maxay usaan kale oo click ku siinayo okay inuu qaybo badan usaan click ku siinayo marka waxaad dareemaysaa waa maxay middle pointigi in waa maxay usan saas click usan kuugu ahayn okay usan middle pointigi usan saas click kuugu ahayn marka middle pointigi hadii aan click saa u saaro ama waa maxay select all intaan dhaho aan kadibna aan okay dhaho dib igu mahayso marka select all ayaan saa u leeyahay kadibna okay ayaan saa u leeyahay okay marka hadii uu dib ugu noqono adeertan waxa dareemaysaa waa maxay hadii aan mesela aan line saa u dhaho kadib enter saa u dhaho waxa dareemaysaa waa maxay inuu middle pointiga waa maxay si fudud saas igu soo qabto okay marka middle pointiga ayaan saa u qabanaya ilaa iyo middle pointiga kale ayaan saas waa maxay aan ugu taabanayaan marka linkan waxaan doonayaa waa maxay dabcan sida saxda waa maxay in beamku waa maxay dul saaran yahay column-ka yani column-ka in waa maxay korkiisa uu saaran yahay beamka marka waxaan doonayaa in aan beamka aan waa maxay taabsiiyo column-ka marka dabcan qaabkee baan u taabsiinaya waa in waa maxay uu beamka mesela linkan ugu talagalay waa inuu soo taabtaa rigid pointigaaga okay marka waxaan sameynayaa waa maxay extend ayaan saa u leeyahay aan extend ayaan saa u leeyahay ex ayaan saa u taabanaya kadib waxaan leeyahay okay select all ayaan leeyahay kadib okay ayaan saa u leeyahay waxaan doonayaa waa maxay in uu line-keega waa maxay markasta beamka uu ku dul dhaco waa maxay rigid pointiga dhex yaala column-ka okay yani uusan ku dhicin waa maxay column-ka banaankiisa okay marka pointigaas waa point muhiim ah dhanka kaleetana sidoo kaleeto sidaan kaleeto ayaan u leeyahay aan waa in waa maxay uu line-kaas waa maxay ku dhaca waa maxay rigid pointiga okay marka pointigaas saas ayaan u taabtay aan hadda waxaan doonayaa waa maxay link beamkan oo kaleeto inaan sidoo kaleeto aan waa maxay aan sawirto aan okay marka beamka L ayaan saa u leeyahay aan okay middle point ayaan saa uga qabsanayaa ilaa iyo middle pointiga kaleeto okay marka qaybta tan dabcan beamkan dhinac wuxuu kaga waa maxay uu ka saaran yahay waa maxay column dhanka kaleetana waxa uu ka saaran yahay beam okay dhanka column-ka hadaynu saa ugu soo noqono qaabkeena hadda isla aragnay maxaa extend ex waxa garatay ma enter ayaa saa u leedahay select all ayuu ku leeyahay enter ayaan saa u sii leeyahay okay okay ayaan saa u taabanaya waa in waa maxay uu saas oo kaleeto beamka uu ku dul dhacaa uu rigid beamka kaleeto okay dhanka sareeto haddaan saa ugu noqono qaabkan saan saxba may qaabkan sidaan hadeertaan ma saxba طبعا qaabkan sax ma aha waxaan ogahay waa maxay in beamkan waa maxay ku dul saaran yahay beamkan kaleeto marka beamkan kaleeto waxaan line ayaan dul dhigtay marka line-kan kaleeto inuu line-ka kaleeto saa u dul taabtaa okay marka pointigaasna waa point muhiim ah okay marka qaybtan kaleeto haddaan saa u taabto isagana line kaleeto aan saa u sawirto middle point isaan oo kaleeto ilaa iyo middle pointiga qaybta sare okay kadibna waa maxay oo bobsiinaya hadeertaan extend ayaan leeyahay aan okay qaybtaana beamka dul taabtaa qaybtaana waa inuu rigid pointiga u saa u taabtaa okay طبعا ilaa hadeertaan saddex beam ayaan saa u dhameeyay beamkan oo kaleeto dhankan waxa ka ah column dhankanna waxa ka ah column marka ugu horeysa line ayaan saa u taabanaya aan waxa ku xiga extend dhanka kaleetana zoom ayaan saa u leeyahay waxaad arkaysaa extend ayaan saa u leeyahay okay beamkan kaleeto waa maxay dhankan waxaad dareemaysaa waa maxay inuu beam kale halkan ka saaran yahay yani dhankan waa maxay inuu beam ka saaran yahay dhankan inuu column ka saaran yahay dhankan sidoo kaleeto inuu beam ka saaran yahay marka haddii aan mesela hadda aan line saa u saarto aan waxaan u baahnaa waa line-kan kaleeto inuu taabto marka ugu horeysa waa inaan line-ka beamka weyn oo main beamka waa inaan marka hore aan sawirto aan okay marka main beamka ayaan marka hore saa u sawiranayaan maxaa ku xiga extend dhanka kaleetana extend صح kadib hadda waan sawiran karaa labadaas beam صح line kadib maxaan dhahayaa extend
beamkan waa inuu soo taabtaa beamkan korana waa inuu taabtaa rigid beam marka laakiin haddaan zoom sa usoo dhaho beamkan waxaan rabaa inuu column-ka ku dhaco laakiin hadda muxuu ku dhacay beamka kaleeto ayuu ku dhacay laakiin marka beamkan marka ma beamkan uu dul saaraya maya laakiin beamkan wuxuu dul saaraya column-kan uu dul saaraya sax marka waa inaan iska ilaaliyaa points aan oo kaleeto waa inaan dhahaa beamkan waa inuu gaaraa ilaa column-ka rigid pointigiisa okay marka waa inaan ilaa column-ka gaarsiiyo u dhaafaa waa maxay beamka kaleeto laano column-kan labada beam labada dhinac bay ka saarayeen okay beamkan waa inuu asaga taabtaa beamkan kaleeto inuu asaga taabtaa marka pointigan waa point muhiim ah iska fiirso okay kana sidoo kaleeto line ayaan saa leeyahay aan maxaan leeyahay extend kana waa maxay waa inaan saa dhahaan okay marka kan hadda ma waxaa la rabaa inuu taabto rigid pointiga mise beamka koro inuu taabto la rabaa may waxaa la rabaa inuu rigid pointiga taabto laano wuxuu saaran yahay waa column-ka ee ma dul saarna waa maxay beamka kaleeto okay marka afartaas beam qaybtaas oo dhan waa maxay beamka waa maxay wertigooda waa 25ka saas ayaan u dhameeyaan marka haddeertaan qaybtan 2 alifka dabcan waa istaajinaya videoga soo dheeraan waan sameynaya kadib ayaan videoga bilaabaya okay suusan waqti badan u qaadan okay marka waxa dareemaysaa waxa weeye haddeertaan in aan dhameeyay dhammaan beamskayga oo dhan okay kuwii 25 kana waa kuwana kuwii waa maxay 12 kana waa kuwana mid kasta beam kasta waa inuu soo taabtaa waxaan yiri rigidka column-ka okay waxaa marka inaan wax yar halka idin tusaan beam saan oo kale waxa dareemaysaa waa maxay inuu rigidka oo dhan waa maxay si line straight ayna qaato oo kaleeto okay way hadii mesela aad beam saan oo kaleeto continuous aad u haysato hal line qaado dhammaan columns oo dhan dusha ka taabta kida hodoti beamkan isaga ayaa dareemi doona waa maxay rigid beam halka ku saaran okay sidoo kale waxaan doonayaa mesela beam saan oo kaleeto xagee uu taabtaa marka ugu horeysa uu dhaafaya beamkan laano beamkan wuxuu dul saaran yahay waa column-ka ee ma dul saarna beamka kaleeto sax fawdati waxaan doonaynaa waa maxay inuu beamka dul dhaafo beamkan waa maxay soo taabto uu column-ka okay marka pointigaasna waa point muhiim ah inaad saa u dareentay doonayso marka hadda maxaynu soo bilownay columns-ka aynu soo samaysanay kadibna beams-ka aynu samaysanay maxay inoogu xiga waa maxay waa slabs-ki okay haddaan listigeena saa usoo furano waxaad dareemaysaa waa maxay inaan haysanaa laba slab flat slab iyo waa maxay mid kaleeto ah solid slab okay solid slab waa kana okay marka midkee baynu ku hormarnaa waxaan ku hormaraynaa marka ugu horeysa flat slab-ka haddana waa maxay drawing-keena saa usoo eegno waxaad dareemaysaa waa maxay qaybtan hoose mouse-kayga haddaad fiiriso aad gudaha oo dhan inuu yahay flat slab okay qaybtaas oo dhan waa flat slab waa sax waxaan doonaynaa waa maxay inaan flat slab-ka marka ugu horeysa aynu samaysano kadibna aynu waa maxay solid slab-ka aynu gudubno okay xagee baan imaanayaa marka mid kasta layerkiisa aan tognay aan ku ballanay waxaan imaanayaa waa maxay flat slab ayaan saa u imaanayaa طبعا marka hore muxuu igu sawirnaa flatkan color cagaar ah hadeertan cagaar weeye marka waxa colorka aynu ka bedelno si aynu hodhot u kala saarno okay marka color مثلا kan ka duwan oo kaleeto مثلا colorkan مثلا hadaynu saarno blue oo kaleeto maxaa dhacaya okay laakiin column-ka waa kaanaya sax fa khali cadaan aynu ka dhigano okay si waa maxay xogaa labada color hodhotayna oo kala duwanaadaan marka xagee baan ka bilaabayaan any point aad jeceshaa ka bilow hodhot isla pointigaas aad ku soo noqonaysaa okay markaan waxaan ka bilaabayaa halkan مثلا intaan gudahan rabaa inaan sawirto sax marka waxaan ka bilaabayaa column-kan aan ka bilaabayaa dabcan okay marka qof kasta meesha start point-ka ka dhiganaya isaga u tala laakiin aniga ahaan مثلا column-kan oo kale aan ka bilaabanayaan marka waxaan doonayaa waxa weeye inaan fahmo markaan sawirayo drawing code markaan sawirayo slab code waxaan la marayaa waa maxay rigid beamka ayaan dushiisa marayaa markasta okay iyo waa maxay beamka okay labadaasaan waa maxay aan mido mid kale kaga tilaabayaan marka maxaan ka wadaa aan مثلا هذا أركيا polyline ayaan saa u taabanayaan waxaan ka bilaabayaa waxa weeye مثلا column kaas oo kale marka maxaan ka wadaa waa maxay polyline ka waxaan raacayaa waa maxay rigid beam kaas oo raacaya korkiisa okay ay kan kale tagee uga gudbay rigid point-ga uga gudbayaan okay rigid point-ga halkan muxuu yahay balcon buu yahay sax balconka marka ka gudbayaan waxaan doonayaa waa maxay balconka in aan si gaar ah u sawirto maxay uga gudbayaa rigid point-ga okay marka markasta waa maxay xagee baan u kala gudbayaan rigid point-ga waa maxay ama rigid beam-ka ayaan waa maxay aan ka gudbaya marka waxaan doonayaa halkan مثلا in aan halkan kale taan ku istaajiyo مثلا okay marka saanan uga gudbaya qaybtan dhan balcon bay yahay marka balconka uma baahnayaan ka gudbayaan balconka uma baahnayaan okay saasan uga soo gudbayaan waxaan doonayaa inaan gudaha ugu sii galaan marka laba qaab aan sameyn karaa kor baadaan saa u soo aado ka waran مثلا rigid point-ga aan saa u soo maro markasta waa maxay column-ka rigid point-ga aan saa u soo maraya laano rigid point-ga waa waxa column-ka oo dhati dareensiinaya meesha waa maxay kaga dhacayo column-ka sax meesha waa maxay center-ka load-ka
markasta waa inaad saa ula socotaa rigid pointigaaga raacaysaa rigid pointiga beamkan kaga gudbaya marka haddana yani beamka qaybta hoose ma imanaya centerkan kaga gudbayaan marka waa inaad qaab noocaas aad u fahansantahay waa time waqti badan bay ka qaadanaysaa laakiin hadaad fahanto mutaca yani oo ku raaxaysanaysaa inaad markasta aad samayso okay marka waxaan doonayaa waa maxay inaan qaybta korsa u kormaro aan okay marka xagee baan marayaa sorry meel khaldan baan qabsaday control z okay alxamdulillah inuu dhammaan iga fogaan ka baqayaan marka midig ma u laahday bidix ma u laabanaya dabcan sax waxaan doonayaa waa maxay inta solid slabka inaan waa maxay soo qabsado marka xagee baan beamka uga gudbayaan rigid pointiga rigid beamka sax rigid beamka saa uga gudbayaan okay intaasoo dhan waxay ii tahay flat slab marka lima lahan hoos baan saa uga soo gudbayaan waxaan imaanayaa aan halkan kadibna kan kadibna kan kadibna kan kadibna waa maxay kan dareemisa wala marka ugu horreysay anigu aan DXF ka sameynayay aad bay ugu adkeyd laano maxkii ugu gudbaa maxaan ku gudbaa yani wareer laakiin hada qaacida fahanto waa maxay beam kasta rigid beamka uga gudub hada fahanti bas خلاص wax kasta ku fududaanay yani hadii laakiin taas aad ku wareerto saan anigu aan u wareero oo kale ta wareeraysa marka pointigii baan jaa u soo dhawaaday sax pointigii ayaan ku dhameynayaa pointigii aan ka imi plus ka soo mishata plus ka ku ekeenayaa wa maca salaama inta ayaan saa u leeyahay hadda markaan click saa u siiyo maxaad arkaysaa intii waxaan soo samaystay waa maxay intii waxaan soo samaystay flat slabka ahayd sax intii flat slabka ahayd waa kasa okay haddaan imaad qaybtan hoose solid slabka qaybtan hoose solid slabka waxaan imaanayaa an FSS 14 ka sax SS 14 ka okay tan way fududahay tamam waa maxay beams waa automatic ala toon BL hal midka box kan kale tan idin sameynayaan boxyada kale idin ka sameynaya okay kan rectangle caadi wax farqi waa maxay wax mushakil u keenaya marka waxaan rabaa inaan beam kan hoose u gudbaan so waxaan doonayaa waa maxay inaan beam kan hoose u gudbaan marka xagee u gudbi karaan inaan toos u soo raaco asaga kadib aan asaga u soo raaco sax markasta waa maxay rigid to beam point intaas bas ciyaar hada inta fahanto billahi tawfiiq halkaas saa ugu imaan check enter select saa u leh kasa that flat slab waa maxay automatically saasan qabsada xagee baan dhex marayaa markasta rigidka ayaan waxaan wax uga sii gudbiyaa beamka kale okay saddexdan ayaan sameynayaa saddexda marka videoga oo joojinayaa aan gadaal baan ka bilaabayaa okay marka halkan qaybtii solid slabka dhamaantood waa dhameeyaan hadaan solid slabkan click saa u sii waxaad arkaysaa waa maxay inuu qaybtan highlight ku saaray solid slabka kanoo kale hadaan matalan aan qaybtan oo kale tan click saa u sii waxaad arkaysaa sidoo kale qaybtan inuu ku saa kugu saaray qaybtan sidoo kale inuu highlight saa kugu saaray qaybtan sidoo kale iyagana waa maxay qaybtan ilaa wamiya qaybtan gudaha waa ilaa waan maraynay laakiin lima lahan hadda ayaan sameyn karaa aan BL matalan ama hadaan dhaho matalan dhammaan ama dhimale hadaba samee BL qaybtan DXF ka harwana beamkan uga soo gudbo kana sidoo kale halkan kana qaybtan inaan uga gudbo ilaa meeshan kasoo bilaabay aan saa ugu dhameynayaan okay marka hadda waa maxay waa kaas aasaan u sawirayaan okay sidoo kale laba solid slab ayaan haystaa qaybtan iyo qaybtan okay marka solid slabki flat slabki saasan ku dhameeyaan hadda maxay igu xiga waxa igu xiga waa maxay inaan openingki meelihii iyo furfurnaa saddex open baan haystaa inaan waa maxay layeradooda ku daro iyo waa maxay balakoonada sidoo kale inaan iyagana layer gaar aan ku sawiro sax marka matalan hadii aan ku hormaro balakoonada matalan opening ama waa maxay misal live load kan ku hormarnaa in ahsan live load ka okay live load ka waxaan ugu talagalay waxa weeye inaan qaybta balakoonada bas aan waa maxay live load ku ka duwan yahay qaybta kale inaan ku sawiro okay marka BL ayaan saa u leeyahay aan qaybtan live load ka ayaan waa maxay ku sawirayaan marka rigid
isla stepski aan hore u qaado oo kale taan u qaadayaan طبعا hadda waxa dareemaysaa waa maxay xidhan iskalada iska ka galeen ayaadan arkeen waxa sawiraysa iyo meesha wax ku sawiraysaa marka hadaan click saa u siiyo waa maxay khalaas waa maxay balkoonkan ayaan sawiraan balkoonkan kor ay haray BL marka staad practice badan aad samayso way ku fududaanaysaa waxa weey inaad si fudud aad u samayso okay marka practicalkaaga ama gacantaada ha badato ay balkoonkan kale tan asagana almost san ku dhameeyaan okay balkoonkan ay haray BL ayaan saa u leeyahay muduumaya horta 10ku play ma yareen okay qaybtan hadaan saas u soo dhaho مش كبلامني وحقي بلاس كاس قيبت كوربي سما مش شكرا كبلامي كلا كوركي سجي ترساولي اوكي اسغنا بلكون كان سيدو كرتا اي صور بلكون كان هو ساي هري بي ال قيبتنا كلها ريكتانجل بيد marka rectangle ku sawiran kara laakiin خلاص مش مشكله بي بولي لاين ku sawirtaan okay marka qaybtaas markaan saa u soo dhameeyo dhamaan balkoonada waxa ay soo haray openingka okay marka waxaan imaanayaa layerka opening okay marka openingka aan kale to marka openingka marka saan kale tiyahay gudahan ka qabsanaya qaybta sare ka qabsanmayo okay marka rectangle kan ii maadaama waa maxay usan rectangle ii yahay sax marka rectangle saan kale taasay igu qabo enough rectangle kale to waxa polyline uma baahni markaan okay waxa ay haray polyline kan rectangle kan ay haray sax marka rectangle kan asaga waxaan dhahnay gudahan ka qabsanaynaa sax marka asagana rectangle ayaan ku sawiraynaa dhiman rectangle ayaan saa u leeyahay aan gudaha ayaan ka soo qabanayaa halkaas koritaan ka soo qabsanayaa okay gudaha ayaan ka soo qabsanayaa bas marka lan gudaha ayaa ii banaan qaybtan waa darbigii sax fa darbiga ma qasama inaan dhameeyaan okay marka hadda dhismahaygii oo dhan waa maxay saasaan u dhameystay aan dhamaantiis waa maxay mid kasta layerka aan ugu talagalay ayaan saa u dul saartay aan haddii aan rabo marka inaan iska hubiyo aan waxaan sameynayaa waxa weey inaan horta marka ugu horeysa layeriski aanan ahayn ET oo dhan inaan waa maxay aan sameeyo waa maxay turn off aan ku sameeyaan okay marka wixii aan ET aanan ahayn oo dhan turn off iska say okay si waa maxay qaybta ET ga bas ay u saarto ET column iyo kuwan ED marka okay wixii ET hatch kan kale turn off dheh kana turn off dheh kana turn off dheh kana turn off dheh okay haddaan saas kale u soo laabto waxaad arkaysaa waxa weeye in dhismahaagii oo kale taadirtaan aad dhismihii aad ka soo gudubto asagoo section aad laakiin haddirtaan qaab structure aad u bedeshay okay marka qaybtan hoose waxa dareemaysaa waa maxay in halkan balkoonna ii yaaleen marka balkoonnadii baan halkan ka tagayaan okay marka dib ma lahan ayagoo meeshooda joogayaan sawirayaan waxaan dhahayaa waa maxay balkoonnadii maxaan ku sawirayaa aan live load ayaan ku sawiraysaa marka qaybtan oo dhan waxaan dhahayaa aan waxay ii ahayd balkoonna ii ahayd marka rectangle caadi ayaan sawiranayaan dib ma lahan rectangle caadiya مثلا waxaan ka bilaabanaya halkaan oo kale ka bilaabanaya okay ilaa ay xagee ilaa ay halkaan okay qaybtaas oo dhan balkoonna ay ahayd sax marka balkoonnadiisa soo sawirtay marka hadeertan maxaan sameeyaan hadeertan DXF file ayaan sameeyaan ugu talagalay oo dhigtay insha Allah file-kan ayaa wuxuu gelayaa automatically waxa uu gelayaa e-tabsiga marka file kasta waxa qayb kasta waa maxay qaybtan hadaan click au si kor fiiri maxaa ku yaala solid islam haye hadii مثلا aan qaybtan oo kale aan opening oo kale taan imaan qaybtan opening okay hadaan click au si maxaa arkaysaa opening haye hadii مثلا balkoonada imaado waxaad arkaysaa live load okay hadii مثلا aad fiiriso maxay flat slabki wuxuu ku leeyahay flat slab mid kasta waa maxay layerkiisa ayaad ugu talagashay koobaya DXF ka hadii aad fahmi weydo insha Allah waxa laga rabaa maxay kan maxaan ku sameeyay typical floor ki bas weey okay hadhuuti laakiin markii aad sameynayso adigu aad faylashan kaleeto waxa laga rabaa waa maxay inaad mid kasta aad process-kan aan maray oo kaleeto aad u marto okay aan doonaya waxa weeye hadeerta inaan file-kan save gareeyo ayaan doonayaa okay marka maxaan sameynayaa waxaan soo furayaa halkan okay waxaan soo taabanayaa maxay save as ayaan leeyahay okay any place aad doonayso ku save gareeyo ayuu ku leeyahay okay marka hadda markii ugu horeysay xagee wax ku sawiray statical laakiin hadda statical ma doonayo file-keeni waxaan doonayaa hadda DXF baan sameeyay marka project 2 ga ayaan galayaa مثلا waxaan imaanayaa waa hadda file-ka aan sameystay wuxuu ahaa DXF marka file-shan hadda xusuusta lecture-ka ugu horeeyay file-shan ayaan diyaarsanayaan marka hadda step 3 baan marayaa waa maxay DXF file-keena sameeyay kadib waxa igu xigay waa maxay e-tabsigii save iyo sab aan kala galayaa mid kasta step-kiisa ayaan gaarayaa okay DXF file ka ayaan tagayaa marka DXF file ka mid kasta DXF gaal marka DXF file aan ugu talagalnay
etabs ba mise waa dxf file aan ugu talagalnay save waxa weeye etabs okay filekiisa etabs ay galayaan marka wuxuu ku leeyahay magac u bixi waxaan leeyahay مثلا typical roof ama floor mid ka jeceshahay roof iska leh okay typical roof ayaan saa u leeyahay aan kadib halkan ayaan soo furay qaybtan hoose waxaan leeyahay waa maxay waxaad iigu save garaysaa aad dxf laakiin 2000 ah okay hadaa مثلا dxf qaybahan dhan waa dxf soo xakaratay ma laakiin مثلا hadii aan dxf waa maxay 2018 hadaan ku save garayaan hadhowtii filekan ma furan karo hadii engineer waa maxay computerkiisa ku jira waa maxay version ka hooseeya versionada waa maxay 18 okay مثلا 17 haduu ugu jiro AutoCAD 17 ama AutoCAD waa maxay 16 ama 15 ma uma furmayo okay markasta waxa fiican file aad save gareynayso aad midka ugu hooseeya ku save garay lan ay qof u dhati ay version u haysto waa maxay uu furan karaa okay marka waxaan ku save gareysanaya waa maxay AutoCAD 2000 ayaan ku save gareynaya okay marka inta ayaan saa u leeyahay typical floor.dxf ayuu noqonayaa hadda iska bedelaya waa maxay dwg okay save ayaan saa u leeyahay aan halkaas ayuu waa maxay casharkan inoogu gabagaboobay waxa inoo ballana casharka ku xiga aynu toos u galayno barnaamijka etabs insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.